weligaa waxaad tahay kufaan maanta laakiin guul wallaahi guul inay ciilaan rabeen nolosha igu ciilaan dhiigaan mujeedin xabsiyan isku diyaar oo muuqaalkeeda ku macsalaamin lahayd sidaad muuqaalkaba ku arki karto daawade waa wiil Soomaaliya oo dhahaya weligaaba kufaan waxa aad tahay. wiilkan ayaa sida la xaqiijiyay ku nool gudaha dalka Jarmalka iyadoona sidoo kale uu dilay laba wiil oo Soomaaliya isla mar ahaantaana isaga ku tilmaamay inuu yahay gabooye qabiilada Soomaaliyeed ama qabaa'ilka Soomaaliyeed. wiilkan ayaana xanaaqay oo toorey soo qaatay oo ku boobay labadii wiil ee ku yiri waxa tahay gabooye. wiilkan waxa uu sheegayaa inuu isku dhiibayo booliiska mar ahaantaana waxa uu sheegay inuu ka cadgoostay dadkii uu dilay, balse xaaladda aad ayay u cakiran tahay. intaan u gudagelin muuqaalkeennan iyo faahfaahinno intaasi ka sii dheeraada daawade waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka laag-garayso oo aad ku soo biirto janaalkeenna Ducaysana Media isla mar ahaantaana laag aad saarto beejkeenna Ducaysana Media sida aad ula socoto xogaha aan ku baahinno baraheenna bulshada ee kala ah janaalkeenna YouTube iyo weliba beejkeenna Facebook ee Ducaysana Media. ku mahadsanid daawade. kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahayow meel kastoo aad dunida daafeheeda ka joogtaan ku soo dhowaada janaalkeennan Ducaysana Media iyo sidoo kale beejkeenna Ducaysana Media oo aad aalaaba uga barateen inaad kala socotaan xogaha xasaasiga ah isla mar ahaantaana taagan maalinka. wiil Soomaaliya isla mar ahaantaana ku nool gudaha dalka Jarmalka ayaa waxa uu toorey ku boobay laba wiil oo Soomaaliya iyadoona sidoo kale haatan wararka aan helayno ay xaqiijinayaan in labada wiil oo uu tooreyda ku boobay mid ka mid ah uu geeriyooday. dhacdada ayaana ka dhacday gudaha dalka Jarmalka magaalo ka mid ah iyadoona sidoo kale wiilkani uu barahaysa bulshada qaasatan aaladda lagu magacaabo TikTok uu soo geliyay muuqaal uu isagu ku sheegayo weligaa waxaa tahay ahaw. sheekada wiilkan oo uu dilka ku geystay ayaana saaxiibayaal waxaa la sheegayaa inay tahay kaftan soo kala dhex galay isaga iyo laba wiil oo kale iyo dhalinyaro kale. dhalinyaradii ayaa ku yiri isaga adigu waxaa tahay gabooye, waxaana ay ugu dareen waxaa tahay laangaab. wiilkii ayaa xanaaqay oo waxa uu soo qaatay toorey isla mar ahaantaana waxa uu ku boobay labadii wiil ee isagu tiri gabooye ayaa tahay. kadib waxa uu soo duubay muuqaal oo uu soo geliyay barihiisa bulshada qaasatan TikTok isla mar ahaantaana waxa uu ku leeyahay weligaa waxaad tahay ahaw. waxa uu sheegay inuu ka cadgoostay dadkii isaga dhibaateeyey, balse waxa uu toorey ku boobay laba wiil oo Soomaaliyeed isla mar ahaantaana isagu ku dhiig ah. sababo la xiriira waxaad tahay gabooye oo keliya. gabooye ayaana ah qabaa'il Soomaaliyeed isla mar ahaantaana ka mid ah qabaa'ilada Soomaaliyeed. wiilkan ayaana haatan waxaa gacanta ku dhigay booliiska dalka Jarmalka iyadoona sidoo kale haatan la soo warinayo in kiiska iyo sababaha haatan keenay in wiilkani uu dilo laba wiil oo Soomaaliya ayay baarayaan, waxaana haatan la xaqiijinayaa in gebi ahaanba wiilkii xabsi la dhigay. weligaa waxaad tahay kufaan maanta laakiin guul wallaahi guul inay ciilaan rabeen nolosha igu ciilaan dhiigaan mujeedin xabsiyan isku diyaar oo muuqaalkeeda ku macsalaamin lahayd. sida aad daawade u daawato ama aad noola socoto warbixinnada iyo muuqaalada aan soo gelinno janaalkeennan Ducaysana Media iyo beejkeenna Ducaysana Media fadlan muuqaalka laygaree oo la wadaag saaxiibadaada ku soo biir janaalkeennan Ducaysana Media oo subscribe dheh. ku mahadsanid daawade. tan iyo kulanti dambe nabadiino.